Assalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Tamayoso, William Saliba iyo Nketiah, dhaawacyada kooxda Arsenal iyo waqtiyada la filayo inay dib ugu soo laabtaan garoomada. Saadaasha Supercomputer oo saadaaliyay kooxda ku guuleysanaysa Champions League xilli ciyaareedkan. Mason Mount oo bedelay wakiilkiisa xilli uu kooxda Chelsea uu rabo inuu isaga tago xilli ciyaareedkan. Jose Mourinho oo doonaya in ay UEFA ay bedesho sharciyada saameynta badan ku yeelanaya Champions League iyo Europa League. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan dad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesina share gray si barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Mahadsanidin. Kooxda Arsenal ayaa dhaawacyo badan ka soo gaaray kulankii ugu dambeeyay ay la ciyaareen kooxda Sporting Lisbon tartanka Europa League, iyadoo kooxda Arsenal gabi ahaanba laga ciribtiray tartanka Europa League. Kooxda Arsenal ayaa dhaawacyo ka soo gaaray xidigaha Tamayoso, William Saliba kulankii ugu dambeeyay ay la ciyaareen kooxda Sporting Lisbon. Kooxda Arsenal ayaa laga ciribtiray tartanka Europa League kulan ka dhacay garoonka Emirates Stadium, waxaana Arsenal dhaawacyo ka soo gaaray xidigaha William Saliba iyo xidiga Tamayoso, inkastoo markii hore dhaawac uu ka ahaa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Arsenal ee Nketiah. Waxaana tababaraha kooxda Arsenal iyo dhaqaatiirta kooxda aysan xaqiijin waqtiga ay garoomada dib ugu soo laaban karaan xidigaha Tamayoso iyo William Saliba. Waxaana la sheegay xidiga Nketiah ee ka ciyaara weerarka kooxda Arsenal in uu dib ugu soo laaban doono daqiiqadan bishan mise bilowga bisha Abriil ee soo socota. Mikel Arteta ayaa walaac xoogan ka muujiyay dhaawaca soo gaaray William Saliba maadaama uu yahay daafaca uu ugu kalsoonida badan yahay daafacyada kooxda Arsenal. Waxaana tababaraha Mikel Arteta iyo dhaqaatiirta kooxda Arsenal la sheegay in ay qiimeyn doonaan xaaladda dhaawacyada kooxda, walow aan la ogeyn xidiga William Saliba inuu dib ugu soo laaban doono kooxda kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Crystal Palace. Arsenal ayaa gabi ahaanba isaga hartay tartanka Europa League, waxaana la filayaa in ay haatan ay ku dagaalamaan oo ay dhibcaha ay ka horjiraan kooxda Manchester City ay sii dheereystaan si ay ugu guuleystaan horyaalka English Premier League ee xilli ciyaareedkan. Supercomputer ayaa saadaaliyay kooxda ku guuleysan karta Champions League ee xilli ciyaareedkan. Maalintii shalay waxaa la sameeyay isku aadka tartanka Champions League iyadoo kooxo weyn ay isku aadeen tartankan. Real Madrid iyo Chelsea, Bayern iyo Manchester ayaa ah kooxaha ugu adag ee isku aadkii shalay la sameeyay. Waxaana Supercomputer uu saadaaliyay in tartankan ay ku guuleysan karto kooxda Manchester City, iyadoo finaalka ay ka qaadi doonto kooxda Napoli oo xilli ciyaareedkan bandhig aad u fiican ay ku jirto. Kooxda Napoli oo haysa hogaanka Serie A dalka Talyaaniga ayaa doonaysa in xilli ciyaareedkan ay ku guuleysato Serie A dalkaasi. Napoli ayaa bandhig fiican ka sameysay tartanka Champions League iyo koobka horyaalka dalkaasi Talyaaniga, waxaana haatan kooxdan loo saadaalinayaa in ay gaari karto ilaa finaalka tartanka Champions League. Xidiga kooxda Chelsea ee Mason Mount ayaa la sheegay inuu iska bedelay wakiilkiisa xilli la sheegayo inuu isaga tagi doono kooxda Chelsea ee dhamaadka xilli ciyaareedkan. Kubasameeyaha kooxda Chelsea ee Mason Mount ayaa la sheegay in ay isku dhacsan yihiin maamulka kooxda Chelsea, waxaana uu xidigan uu doonayaa in uu heshiis cusub ay ka saxiixto kooxda Chelsea, inkastoo xidigan uu doonayo in mushaaraadkiisa kooxda Chelsea ee loo kordhiyo. Xidigan Mason Mount ayaa la sheegay in mushaaraadka toddobaadlaha ee kooxda Chelsea uu ka qaadanayo lagu sheegay inay gaarayso ilaa 80,000 oo gani, laakiin xidigan ayaa doonaya in mushaaraad badan la siiyo haddii heshiis cusub uu saxiixayo kooxda Chelsea.
Mason Mount ayaa lala xiriirinaya kooxaha Manchester United iyo kooxda Liverpool xilli la sheegay in kooxda Chelsea hadday iibinayso xilli ciyaareedka dambe ay xidigan ku fasixi doonto lacag gaaraysa 50 milyan oo euro. Mason Mount ayaa xilli ciyaareedkii hore bandhigiisa ahaa mid aad u sareeyo inkastoo xilli ciyaareedkan uu yahay mid aad u liita. ugu dambeyntii tababaraha kooxdaas Roma Jose Mourinho ayaa doonaya in UEFA ay bedesho sharciyada saameyn ku yeelanaya Champions League iyo Europa League. tababaraha kooxdaas Roma Jose Mourinho ayaa sheegay in gebiyahanba tartanka laga reebo kooxaha kasoo laabta tartanka Champions League ee soo aada tartanka Europa League. waxaana Jose Mourinho uu sheegay in xiisaha tartanka Europa League iyo Champions League ay dilayaan kooxaha kasoo laabanaya Champions League una soo laabanaya tartanka Europa League. Jose Mourinho ayaa tilmaamay in kooxaha ciyaaraya tartanka Europa League ay yihiin kooxo ku xisaabtamaya in xil ciyaareedkaas ay ku guuleystaan tartanka Europa League, laakiin haddii kooxo weyn laga soo reebay tartanka Champions League ay soo galaan waxay adkaanaysaa in ay ku guuleystaan tartanka Europa League. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan dadka cusub tahay like noo saar, subscribe, share, barnaamijkan asxaab badan u gaaro. mahadsanidina.